Bismillahirrahmanirrahiim. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr muuqaal. Haddaan ugu cusub tihiin subscribe-ka, like-ta noo saara, comment-iga hoos ku soo qora. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo ciyaal la xirtay leeyihiin. Waxaan rabaa inaan ka hadlo jaamaca Garaad Cali oo tagay Muqdisho, booqashadu ugu tagay ninkan la yiraahdo Xamse, booqashadu ugu tagay garaadka. Waxaan rabaa inaan ka hadlo garaadka guriga joogay buu ugu tagay Xamse. Waxaan rabaa kale inaan ka hadlo barnaamijkan kale dagaalka soor ku socday markuu qaraadha hadalku ku hadlay. Baan rabaa inaan idin maqashiyo. Horta ninkan leeyahay Xamse waa nin wax si ka yihiin, waa ra'iisul wasaare. Wuxuu ku joogaa dowladda Soomaaliya qabiil 4.5 buu ku joogaa, daarood oo dhan buu matalaa. Jaamaca Garaad Cali Xamse adeer buu yahay, jaamaca adeer ah. Haddana saas ay tahay, shalay markuu dagaalka markuu ku socday dhulbahante, oo Muuse uu duqeynayay, oo hubka uu soo dhiibay Ismaaciil Cumar Geelle, oo Xasan Sheekh Maxamuud uu 3 milyan uu siinayay Muuse Biixi, oo ninka ku xiga Xamse oo Isaaqa uu u hadlayay Somaliland. Ninkaas oo la yiraahdo Saalax baan u maleynayaa magaciisa, ninka madaxa ninkaas uu hadlayay dadkiisa. Xamse ma hadli karin, xataa inuu nin dhiig leh yahay ma tusi karin. Maxaa yeelay ninkii ka hooseeyay oo ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahaa baa u hadlayay dadkiisii. Asagana ma hadli karo, qolof meesha fadhiyo ahaa. Laakiinse wuxuu dhihi karay qaylada joojiyay iyo isqaawiyay joojiyay iyo Somalilandtiina ka mid ahaado raaca, waa uu oran karay. Waa wuxuu ku qaylinayay Xamse. Hadda Xamse sawirkaas aad arkaysaan oo garaadka isla sawirayo waa message oo loo soo dhiibay. Waa wuxuu Xasan ka dambeeyay. Sawirka arkaysaan garaadada waxaan leeyahay yaan la idin kala daadinin, yaan carabka la idin laalaadinin. Waxa la isku kiin qorayaa waxa weeye idinka oo SSC oo garaadadii iyo Siciidan iyo Puntland si la isku kiin dhufan lahaa, la isku kiin diri lahaa. Xasan wax kale maaha, waxa la isku kiin qorqorayo wax kale maaha. Xasan iyo ra'iisul wasaarahaas waxa weeye wax kale la isku kiin qori maayo. Waxa la isku kiin qorayaa Siciidan si la isku kiin diri lahaa. Ninkan Puntland inuu burburiyo rabaa Xasan leeyahay, laakiin ma burburin karo. Awoodu ku burburin karo ma laha, oo awoodda Ilaahay uma yeelin. Puntland ayadaa xamar dowladda keentay, ayadaa soo dhistay, ayadoo isla walaalihiin nolol kuma noola. Baska xamar dhex maraya shidaalka waxaa loogu shubaa caaga oryada baabuurta, taangiga halkaas shidaalka loogu shubaa. Isagoo Xasan naagihiisa shidaalkaas qadacgadayeen. Haddana xamar baabuur baa lagu xaragoodaa. Puntland marka waxay rabtay xamar inay gaarsiiso nolol, wayna gaarsiisay. Laakiinse qofkaas Xasan leeyahay oo Siciidani oo walba soo saaray, qof dhiman abaal ma laha, waa qof dhiman Xasan. Qofkaas garaad waxaan leeyahay hadda adigay firdhiyo waxaad joogtaan xamar iyuusan carabka idin laalaadinin,
yuusan idinku dirin walaalihiin Puntland. hadduusan idin aqoonsan waxaa imaan doona madaxweyne kale oo idin aqoonsanaya ayaa imaan doona. caalamkana idinkoo iska gado oo isku sheegay inaad tihiin dowlad goboleed. haddaan taa kusii socda, Xamse markii laga rabay hiilada iyo inuu dhaho Soomaaliya calankeeda rabtaa, Somaliland ee faraha ka qaad inuu dhaho markii laga rabay, oo uu ku bedelay hadalkan uu ku qaylinayo. hadalkan ma ila dhegeysta horta, dhegeysta waxaan hadalku ku hadlay markuu dagaalka Laascaano ku socday. Laascaano yaa tolay isqaawiyay kala cararayda hala jooji. yaa tolay isqaawiyay kala cararayda hala jooji. Soomaalida waxay dhihi jirtay qof dheer dhugla bay dhihi jirtay, laakiinse dad dheer oo caqli leh way jiraan. dad waxay jiraan dhiman sidooda u jiraan. waa kaa ninkaas saas oo hadda u hadlay Xamse la leeyahay, hadalkiisa saas weeye. dhiiggiisa wuxuu siiyey habarwacashada joojiye iyo isqaawiyay joojiye. caqligiisaa tusay taa. waxaan kaloo idin tusayaa xilligay dagaalkaas ugu jiray Siciidani suu u hadlay. hadalkiisa ila dhegeysta Siciidani. dadka reer Puntland oo gaalkacyo dadkeeda waa difaaca dalka Sool, magaalada Laascaanood. qarsan mayno nacabka ku soo duulay ka yeeli mayno. waa kaafiyo kala dheeri, waa nin iyo nin la-aan. halkaa Siciidani tolkiisa waa uu garab istaagay, waana hadlay xilliga laga rabay inuu hadlo. laakiinse qofkaas Xamse la leeyahay, oo dadka hadda ay leeyihiin xataa waxaa la arkay in lagu dhex dilo, in loo gacan qaado madaxtooyada dhexdeeda ba xataa la sheegay. waa nin bahdil eber ka dhigay. waa nin niyaddii dhimatay aysan nooleyn. taasaa kaasaan u baxaya. barnaamijkan ka hadlay waxaa weeye caruur la qafaasho ayay leedahay. barnaamijkan ila dhegeysta. maqlaysaa ilmo la qafaasho wuxuu leeyahay ilmo la qafaasho. magaalada Ceelgaabo sidii ognahay waa magaalo loo beero wada digto, beesha Harti iyo beesha Saaqaboodiga. magaaladaas arrinkeedu wuu soo noqday. wuxuu ku soo noqday nabadgelyo darro. wuxuu ku soo noqday in ilmihii yaraa iyo carruurihii ku noolaa iskuullada dhiganayay maalin badh la qafaasho. waxaan rabaa halkan inaan ka caddeeyo carruurta la qafaashay loo kaxaystay Garadag. anigu horta 26 baan ku leenahay. inta kale waxaan marayaa waa beesha Isaaq. waana lagu hagaajiyey ilmaha yaryar ee 26-ka ah beesha Harti Hoosangel iyo Dhulbaante la geeyey Garadag. waxa weeyaan waad ogtihiin ilmo la qafaasho oo la xidho oo waxa weeye gurigiisa laga haysto oo meel kale la geeyo. wixii uu sababay iyo wixii ka dhashay waad garanaysaa. isaga ilmaha ku nool Cayn iyo ilmaha ku nool gobolka Sool labadaba waan ka soo afjarnay in wiil Isaaqi iska ka haysto oo guriga intuu ka qafaasho gurigu leeyahay uu geysto oo ku soo xidho. labada gobol waan ka soo afjarnay. gobolka Sanaag bay ku hadhay, khaasatan magaalada Ceelgaabo. waqti aan fogeyn waxaynu Ceelgaabo kala yeelanaynaa oo ay laba cala yeelanaysaa, oo ay laba maayar yeelanaysaa, oo ay laba barasaab yeelanaysaa, oo laba bulsho oo istixgelisa sida gaalkacyo kale ay noqon doontaa. meeshaani waxaa la gaabo 26 dhalinyaro ah oo caruur ah oo Dhulbahante iyo Warsangel laga qafaashay. waxaana loo qafaalay oo loo xiray dhanka iyo Hargeysa in lala aado. waa sheekadii Laascaanood lagu hayay iyo Cayn iyo dhulka lagu hayay. waa sheekadii laga diiday Somaliland oo la iskaga soo saaray. hadda waxay ku hartay halkaana ku hartay Ceelgaabay ku hartay. caruur la qafaasho leedahay
waa runtiis. Marka ayaga caruurtooda soo qafaalatid, wiilkooda aad keensatid, wiilkaagu markaas arkayaan inay wiilka haystaan, ila waa dad caqli aan lahayn, waa dad dhiman. Muuse Biixi barkoona dadku madaxweynaha iyo dhahay madaxweyne leeyahay, madaxweyne xaal qaado, madaxweyne xaal qaado. maxaa yeelay qof walba magacaas waa iska qaatay. weliba hadda Soomaalida hadda madaxweynaha noqonaysa waa Soomaalida inta dhimanba, waa inta dhiman afkooda markaa fiirisid inuu doqonnimada ay ka muuqato. intaas hadda madaxweynaha hadda Soomaaliya dad saasoo badan waxaa jira madaxweynahan ahay dhahaye laakiinse dhiman. madaxweyne wejigiisa laga akhrisan karaa, ma istaahila qofkan mise ma istaahil. marka Muuse Biixi waxaan oran lahaa caruurta hartii aad haysatid, caruur baa loo qabsanayaa, cilgaabana waa kala yeelanaynaa baa lagu yiri. waana ogtahay jamaahiirtu inaysan qoslin. waxaa baalayga yaacay Muusow, waa laga yeersin doonaa adiga ciidankaagaba. waxaasoo dagaal u sameynaysaana waa Somaliland heeso kor fadhi. ayaguna caqli ayaguna iska kaa gartaan, waa waayeen reer Somaliland caqli iska kaa qabtaan. waxay la tahay inaad reerka aad adigu taagtay, reerka inaad wax ku akhrisay iska akhrisay waan u malaynayaa. saa kuma dhama. wiilasha 26 la soo daayo, haddii kale waxa ka heshaan cidna waxba ka sinin. Muuse Biixi baan saas leeyahay. nimanka hartida oo hartida sheeganaya oo Muuse Biixi horgaladii hor socday nimanka waxaan leeyahay reesool wayna ogyihiin wixii sool joogay wixii sanaag joogaba. meeshii loogu talagalay Mahdi Cambaashe baa laydin marsiinayaa. maxaa yeelay caqli ma lihidin, calooshood la ciyaar baa tihiin. waxa cuntaan baa rabtaan. waxa Muuse ula shaqaynaysaan waxaa weeye dhiig iyo uus baan laydinku arag. islaamo waxay ku ducaystaan ilaah wiil isi. war waa laga ducaystaa inaad dhishid neef dadkaaga cadowga u soo raaca inaad dhashaan. maamooyinka waxaan leeyahay ka ducaysta. waxaanoo kaleba fiiri dadkiisi baa la xirxiraya asaa horkacaya. waa dadaan dhiig iyo uus midna lahayn, hartina aan matelin. nimankaas la shaqaynaya Muuse Biixi harti ma matelaan. maalinkii Muuse u gooyin dhinaciisa ayaa waxay noqdeen waa wax dhiig la-aan. barnaamijka halkaas ma baxaya. daawashadiina waa ku mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.